dumarka oo la raaxaysto maxay ku soo kordhisaa dumarka maxaysan ragga ogeyn oo dumarku ay ka helaan. Waxaa ka mid ah waxyaabaha dumarku ay ka faa'iidaan ama ay u roon tahay ama farxad geliyo. Waxaa ka mid ah marka aad raaxo badan siiso xaaskaaga ama waqti fara badan aad la qaadato, wax badan oo aan la soo koobi karin misana ragga aysan ogeyn ayay dumarku ku soo kordhisaa. Haddii aan hal iyo labo aan ka tilmaamo, waxaa ka mid ah gabadha in waqti badan loo raaxeeyo waxay ka caawisaa wax badan oo ragga aysan ogeyn. Waxaa ka mid ah firfircooni, nashaad iyo dhoola caddeyn tiro badan iyo wax kale oo badan oo aysan ragga ku baraarugsanayn. Gabadha markii aad raaxo badan siiso waxaa u fududaanayso in ay galmada ku qanacdo, balse haddii aadan raaxo badan siinin, galmadaas ma qancin doonto gabadha. Taasina waxay sabab badan u noqonaysaa iyo waxyaabo kaloo badan in ay mar walbo cara xad dhaaf ah iyo xanaaq aan xadba lahayn ee mar walbo ku baraarugto gabadha. Raggu ma oga raaxada dumarka waxa ay ka faa'iidaan dumarka habeenka loo raaxeeyo galmada ka hor raaxo fara badanna la siiyo. Subaxii markuu waaga idiin beriyo, wax badan oo aadan ku aqoon jirin ama aadan ka arki jirin ama indhahaaga aysan qaban jirin ayay soo qabanaysaa. Waayo subaxii waxaad arkaysaa jawi aad u macaan badan, quraac aad u qurux badan iyo soo dhaweyn iyo marxabeen lagugu sii sagootiyo. Waxaad kaloo ogaanaysaa markii aad gurigaaga farxad kaga baxdo, xaaskaagana waqti qurux badan aad la qaadatay, habeenkiina galmada ka hor aad wax badan u raaxaysay ilaa heer ay ka qanacdana aad gaarsiisay, waxaad ogaataa inaad ragga wax badan dheer tahay. Waayo inta aad maqan tahay waad u xiisi doontaa, iyadana aad bay kugu xiisi doontaa. Marka aad shaqada ka soo laabato adigoo aad xiisa ugu qabo ayaad gurigaaga ku soo laaban doontaa. Sidoo kale ayadana ayadoo aad iyo aad ku xiiseynayso ayaad guriga ku soo laaban doontaa. Waxay kaloo kaa caawinaysaa inaad ragga asaagaaga ah aad farxad fara badan la qaadatid, ilaa gurigaaga ayaa farxad ku dhisan. Xaaskaaga ayaad farxad iyo qosol iyo dhoola caddeyn iyo marxabeyn aad kaga soo tagtay. Dadka aad shaqo wadaaga tihiin sidoo kale ayagana waxay kuugu arki doonaan farxad fara badan iyo reynreyn aad iyo aad u qurux badan. Intaasi oo dhan waxaa sabab u ah oo ay hoos imaadaa raaxada quruxda badan oo xaaskaaga aa siisay iyo weliba qancitaanka quruxda badan ee ay ku qanacday gogosha xala wixii ka dhacay. Waxaa kaloo jiro ayadoo laftirkeeda kama marna adigaba haddii aad bulshada farxad kula dhex nooshahay, farxadna kula dhex jirtid ragga asaagaaga iyo asxaabtaada iyo ragga aad wada shaqaysaanba, ayadana kama marno inay asxaabteeda jawiga hore ka duwan ay la qaadan doonto ayadoo faraxsan, dhoola cadeynayso, aadna ugu qanacsan nolosheeda. Sidoo kale waxaa sidoo kale ayagana farxadda ka dareemi kara dariskeeda, qaraabadeeda, xigtadeeda iyo xigaalkeeda ku gidaamanba. Raaxada dumarka intaasi keliya kuma eko ee way badan tahay waxyaabaha ay ka helaan dumarka raaxada ka horeyso galmada.